8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. asalaamu calaykum mar labaad kusoo dhawaada videogan wuxuu daba socdaa videogii ka horeeyey ee boortiska ahaa. waxaan rabaa inaan idin tuso f t b dns d h c b iyo s s h kaba qaabka loo isticmaalo protocoladaas ayaan rabaa inaan idin tuso practicalkooga. kusoo dhawaada ka ugu horeeya f t b ga ayaan isticmaalaya. waxaan rabaa inaan downloading iyo uploading sameeyo. isaan horeyba ujeedadiisa kusoo sheegnay waxaa loo isticmaalaa, waxaan idhi waa downloading iyo uploading. qaabka wax loogu download gareeyo laguna upload gareeyo ayaan rabaa inaan idin tuso. serverkan ayaa target ii ah ina noqon doona adminkayga. ip addresskiisaan idila wadaagayaa. ip addresskiisa ayaan idila wadaagayaa. okay, ip addresskiisa saad halkaa ka arkaysaan ip addresskiisu waxa weeyaan 4.19 weeyaan 4.19 weeyaan. ip addresskiisu wuxuu ii noqon doonaa serverka aan wax ka soo download gareynayo. serverka aan wax ka soo download garaynaya ayuu noqon doonaa. markaan uploadingkaan sameynayana serverkaan wax dhex dhigaya ayuu noqon doonaa hadduu ilaahay idhaahdo. kaaligayguna wuxuu noqon doonaa clientka isagu wax soo download garaynaya. haddaba laba file baan halkan ku dhex diyaarinayaa oo midna aan uploadingka aan u isticmaali doono, midna downloadingka markaan f t b ga joogno si aynu marna usoo upload garayno marna aynu download garayno. fileka la soo download garaynaya ayaa serverkayga ku dhex sameynayaa. waxaan dhex dhigayaa imika halkeen joogaa p w d aan idhaahdo msf admin ayaan dhex joogaa sooma. ls haddaan idhahdo maxaad arkaysaa f t b okay vulnerable wax maad arkaysa sooma. okay, downloading file ayaan leeyahay, sudo baan leeyahay, vim download .txt ayaan leeyahay, inter ayaan leeyahay, passwordkaan gelinayaa. waxaan ku dhex qorayaa si fiicanay eega. waxaan ku dhex qorayaa server ayaan ku qorayaa. server ayaan ku qorayaa. waa txt file weeyaan, waa text weeyaan. ls haddaan idhaahdo maxaa halkaa dhex yaala waad arkaysaa. waxaad arkaysaa file ay ku qoran tahay download txt ay ku qoran tahay waad arkaysaa. so haddaan cat aan u isticmaalo saan fileka gudihiisa wax ku jira aan u aragno server ayaa ku qoran. kaligayga ayaanu imanayaa. sudo ayaan leeyahay su okay, passwordkaygaan gelinayaa. f t b ga qaabka loo isticmaalo ayaan rabaa. fileka halkaa aan soo dhex dhigay ayaan rabaa inaan soo download gareeyo anigoo kaaligayga jooga. maxaan sameynayaa markaa f t b ayaa ku qoraya, waa commandka simple. f t b markaan idhaahdo connection baan furanaya. connectionka seen u furanaya open baan leeyahay. targetkayga ip addresskiisa ayaan gelinaya. mar labaad han idin xasuusiyo targetkayga ip addresskiisu waa imisa. targetkayga ip addresskiisu waa imisa. if config haddaan idhaahdo waxa weeyaan 4.19 weeyaan 4.19 ayaan leeyahay. open 4.19 ayaan leeyahay. waxaa laiga baahan yahay passwordka ayaa laiga baahan yahay. waan gelinaya passwordkii. okay, waxaan ka wadaa usernameka ayaa laiga baahan yahay. sorry, okay, let me check in. okay, mar labaadaan kusoo celiyo. sorry connection failed. yes, open ayaan leeyahay. 192.168.4. okay, connection close aan idhaahdo. horta connectionkii hore waa inaad iska xidho. iminku connectionkii iga xidhay. connectionkii dib han usoo furto. open ayaan leeyahay. 4.19 ayaan leeyahay. msf admin ayaan galayaa oo ah user ka jira serverkayga kale. msf admin markaan galo passwordkiisa ayaan gelinayaa. passwordkiisi markaan geliyo maxaad arkaysaa login successfully ayaad arkaysaa. login alashaane systemkaygii waan galay anigoo isticmaalaya f t b. okay, warqadii hadin xasuusiyey waxaan dhex dhigay. warqadii waxaan dhex dhigay bay ahayd warqadda waxaan dhex dhigay p w d aan idhaahdo home msf admin ayaan dhex dhigay bay ahayd. halkaasaan toos u tegayaa. cd home ayaan tegayaa. okay, cd msf admin ayaan dhex tegayaa. msf admin markaan dhex tego maxaad arkaysaa download
.txt ayaad arkaysaa soo ma warqadaas ayaan rabaa inaan download gareeyo seen u download gareeyaa markaa simple git ayaad isticmaalaysaa download ayaad leedahay magaceeda ayaad ku qoraysaa faylkaad rabto inaad download gareyso markaan idhaahdo enter halkaa maxaad arkaysaa transfer complete ayaad arkaysaa soo ma okay faylka halkuu ku dhacay faylka halkuu ku dhacay ayaan tegayaa sudo su aan idhaahdo ls ayaan leeyahay saad halkaa ka arkaysaan faylka meelahan inooga dhex raadiya faylka meelahan aan ka dhex raadiyo waa kan download.txt cat aan idhaahdo download.txt okay cat.txt weeyaan .txt yes txt cat maxaa ku dhex qoran imika iame server ayaa ku dhex qoran halkan ayaan fayl ku dhex samaysanayaa waxaana dhex dhigayaa ku upload gareynayaa oon dhex dhigayaa serverkayga maxaan sameynayaa fayl ayaan sameynayaa faylka waxaan u bixinayaa upload.txt ayaan u bixinayaa waxaan ku dhex qorayaa iam client baan ku dhex qorayaa warqada waan save gareynayaa saad arkaysaan warqada waxaa ku dhex qoran iam client ayaa ku dhex qoran warqadaas ayaan waxaan rabaa inaan serverkayga dhex dhigo simple seen dhex dhigayaa but ayaan leeyahay upload.txt ayaan leeyahay saad halkaa ka arkaysaan transfer complete weeyaan halkee la dhex dhigay serverkayga ayaan ka dhex raadinayaa ls baan leeyahay maxaad arkaysaa upload.txt aan furo cat aan idhaahdo upload.txt aan idhaahdo waa clientkii weeyaan okay intaas waxaa ku dhan qaabka loo isticmaalo ftp-ga ayaa ku dhan imika waxaan rabaa inaan tuso qaabka loo isticmaalo ssh-ka simple weeyaan commandka ayaad qoraysaa commandka markaad qabto systemkaaga aad rabto inaad ku gasho remote-ka user ka jira ayaad qori magaciisa waxaa ka jira admin user loo yaqaano at baad odhani deetana ip addresskiisa oo 92168.4.19 ayuu ahaabaan jeclahay ip addresskiisu somaha aan jagareeyo if config okay serverkiisa ip addresski waa maxay waa 19 weeyaan 19 markaad tiraahdo yes baad leedahay hore xasuusno ssh-ka waxaan nidhi waa secure baan nidhi halka uu telnetku ka yahay insecure halkuu ka yahay ama aanu ahayn mid secure okay waxaad gelini passwordkii serverkaaga passwordka markaad geliso yaanahay imika id haddaan idhaahdo maxaad arkaysaa serverkayga msf admin ayaan ahay id waayo weeyaan msf admin rootka weliba userkaas ayaan ku galay waxaa kaloo sameyn kartaa halkaan kasoo qoray userka iyo maxay heedeenay atiya howlaha kasoo galay waxaad odhani keliya ssh ayaad odhani markaa systemka aad rootkiisa aad hayso passwordkiisa inta badan kaliya user ahaan ayaynu isticmaalaynaa okay ma hayno waa vulnerable serverkii weeyaan laakiin kuwa kale rootka passwordkiisa ayaa la geliyaa okay connectionkaasi iga xidh intaasi waxaa ku dhan qaabka loo isticmaalo ssh-ka iyo ftp-ga waxaan rabaa hadda inaan idin tuso qaabka loo isticmaalo ama maxay hedin saynu ku ogaan lahayn baakedyadii aanu kasoo hadlaynay dhcp-ga iyo lahaa maxay hedinay dhcp-ga iyo dns-ka okay dns-ka ayaan ku horeynayaa dns-ka waxaa loo isticmaalaa domain name server waxaa loo isticmaalaa ip addresska ayuu wuxuu u bedelaa hostname ayuu u bedelaa aynu garan karno oo ah sida tusaale ahaan google.com maxay.com waxaasoo kale ayuu bedelaa waxaas ayuu kasoo bedelaa oo waxa uu u bedelaa ip address oo iminka marka aynu internet wax ka search garaynayno ama internetka markaynu wax ka raadinayno mashiinadani ma garanayaan www.google.com maga aqaanaan mashiinadani waxay aqaanaan binaries ayay yaqaanaan ama si kale haddaynu u dhigno network wuxuu yaqaanaa waa ip address ayuu yaqaanaa ma aqaano waxaa kale ma yaqaano haddaba dns-ka ayaa wuxuu inoo qabtaa protocolkaasi magaceenaas aynu naqaano ayuu wuxuu u bedelaa ip addresskana wuxuu u bedelaa maxay heedanay wuxuu u bedelaa ip addresskana wuxuu u bedelaa url uu maxay heedanay userku fahmi karo iminka tusaale ahaan haddaan taasoo kale aynu tuso bin haddaan idhaahdo google.com anigu google.com baan ku qoray laakiin wax ip addressa maan gelin laakiin replyda markaan helayo khadku waa iga xidhan yahay sorry
imika google-ka haddaan ku qoro anigu ip address kumaan qorin laakiin maxaad arkaysaa google-ku inuu ku qoray ip address inuu siiyey ayaad arkaysaa ip addresskaasi haddii aan maxay heedenay aan browserkayga intaan soo furto ip addresskaasi aan ku qoro maxay heedenay maxaan arki doonaa bal hadda haynu eegno waxaynu arki doonaa okay okay ip addresskaas rabaa inaan copy gareeyo ip addresska markaan copy gareeyo in halkaa ku qoro maxaa dhici doona google-kii baan toos u tegay weliba ip addresskii aan bedelay aan ku qoray muxuu isku bedelay www.google.com ayuu isku bedelay isku bedelkaa yar protocolka inoo qaabilsan ayaa loo yaqaanaa DNS waxaan filayaa si fiican aad ilaagi fahantay okay dhcp-gana marka ugu horeysa router aad ku xidhmayso ayaa dhcp request packet waxaa loo diraa routerka ama serverka dhcp-ga iyo serverku offer ayuu ku siinayaa qaabkay u dhacayaan wireshark ahaan ka eegno wiresharkii baan soo furayaa okay I think inaan ka heli doono packagesyada inaan ka heli doono oo filayaa okay aad baan idin salaamaya dhammaantiin wireshark ayaa soo fulay marka ugu horeysa deeto wuxuu soo qabanayaa labada packet ee requestiga iyo offerka ah intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa videogan aad baan idin salaamaya dhammaantiin assalaamu calaykum